السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال إذ الكيمبا ميل ولبا إدنا داونيسان كسو دوادا ورئيس جارة oo aynu ku wareysareyno ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed haatan ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya daawadayaal ra'iisul wasaaraha mudada kooban ee aan wareysiga ka qaadayno waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha siyaasadeed ee haatan dalku marayo mudadii uu filla Soomaaliya joogay waxyaabihii uu qabtay iyo waliba haatan uu tartamayo waxyaabaha hadii uu guuleysto uu qaban doono mudane ra'iisul wasaare ugu horeyn aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad waqtigaada qaaliga noo hortay ما mahadsantahay cable iyo adigaba waa mahadsantahay ra'iisul wasaare ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo sidaad u aragtaa bal haatan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku marayo mar labaad waa mahadsantahay xaaladda siyaasadeed waa aad iyo aad bay ugu racanta aad iyo aad bay u qarsantahay waxaanu dhaafnay waqtigii 4 sano la rabay in doorasho looga shaqeeyo 10 September bay ku ekayd 2012 waxay ahayd inay dhacdo doorasho cod iyo qof ah sidoo shaqadii la rabay in la qabto lama qaban waxa la soo rabay mid ku meel gaar ah oo bilowdayaashii iyo dadka la isu keenay oo ergooyin ha soo xuleen wargada barka xildhibaanadii ha doorteen tii laftigeeda dib looga dhaca hadda dalku wuxuu ku jiraa crisis dastuuri ah ayuu ku jiraa madaxweynaha xilkii waa ka dhamaaday marka dad badan oo anigu waan ka mid ahay waxay ugu yeerayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo villa Soomaaliya wali jooga لكن مدحوينا معها لأن وحي هيد 10 سبتمبر مدحوينه أما إندي بلو دورت سجى أو صيفة دي أما مدحوينا أصول الله دورتي إنه حلك ورجيو أما هذي ستاسود إن مركا أفيانك ببرلمانكو ولوري وسيدا دستور كقبل كسرعشان يكوباد يقول كسرعشان أفراد ودقيق هذا إنه دستور يشرع ku dhaqmayno madaxweynaha waxay ahayd 10kii inuu wareejiyo xilka inuu wareejiyo marka dalku xagga dastuur ahaan iyo sida ay tahay waa constitutional crisis wax la yiraahdo ayaan ku jiraa arrimaha kale oo nabadgelyada iyo dhaqaalaha dalka iyo waxaasna hadda inaan faahfaahin ka bixiyo looma baahna isha macallina dadku dhan waa ugu yahay xaaladda baashay maraysa sida adiga hadda ka dhawaajisaba 10 bisha oo September ayuu la soo dhaafay ay madaxweynaha waxa uu ka xilkiisii walina filla Soomaaliya ayuu joogaa dabcan dastuurka inuu san qabin waad sheegtay sharciga ayuu filla Soomaaliya ku joogaa madaxweynuhu anigu sharciga ma hayo wadi sharci u haysta iyada ka jawaabi doonto laakiin anigu sharciga ma hayo waa sharci darro ra'iisul wasaare waxa tahay siyaasi waxaad ka mid tahay murashaxiinta xilka madaxtinimada u tartamaysa madaxweynuhu wali filla Soomaaliya ayuu ku jiraa dabcan waa musharax asaga iyo ra'iisul wasaaraha hantidii qaranka gacanta ayuu ku hayeen mas'uuliyadii dalka iyaga wali gacanta ku haya sidee isku qabanaysaa in ayagoo murashaxiina haddana hantidii qaranka iyo mas'uuliyadii dalka ay hayaan annagu waa ka hadalnay arintaas waxaan ku baaqnay madaxweynuhuna iyo ra'iisul wasaaraha labadaba inay wareejiyaan hantida madaxweynuhuna uu ku wareejiyo afhayeenka ra'iisul wasaaruhuna uu ku wareejiyo ku-xigeenkiisa rubahantii waxa aanu doonayna waxa weeye doorasho cadaalad ah oo dadku siman yahay inay dhacdo laakiin doorasho aan cadaalad ahayn oo kubadda dad kaliya ay ciyaarayaan kuwii la ciyaar lahaana ay banaanka taagan yihiin doorasho ma aha haddii la isticmaalayo miidiyihii qaranka haddii la isticmaalayo hantidii qaranka haddii gaadiidkii bullet proofka ahaa la isticmaalayo haddii lacagihii qaranka loo isticmaalayo olole siyaasadeed iyo olole doorasho haddii nabadgelyadii amarka weli nimankaas musharaxiintu ay haystaan oo sida hadda aad og tahayba musharaxiin badan iyo siyaasiyiin badan oo hawl qabsan lahayd jidadka laga xiray iyaguna baabuurtooda ay jidadka socdaan
sidee loo oran karaa doorashadaas waa doorasho cadaalad oo xor ah annagu ma aragno waana ka dhawaaqnay iyagana waa u sheegnay maanta ugu dambayso beesha caalamka aan la fariisanayna waa ka hadalnay walwalkanaga arrimahaas ku saabsan waa la qaybsanay shacabka Soomaaliyeedna waa la qaybsanaynaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay wax cadaalad ah wax loo siman yahay ayuu u baahan yahay laakiin awoodoodii in loo isticmaalo in wax lagu muquuniyo oo xukunka lagu boobo waxa way wax shacabka Soomaaliyeed qabta ma aha arintaas waanu ka dignay waana ka xunnahay in mas'uuliyiintaas iyagoo heli kara inay si cadaalad wax ku helaan inay ku raadiyaan si aan cadaalad ahayn oo aan loo simeyn in wax ku raadiyaan aad iyo aad baan wax nahay waana uga digaynaa waana la talinaynaa waxaan kula talinaynaa in ay inta waxaas hantidaas iyo ay iska daayaan ay dadka la mid noqdaan markaas musharax hufan ay sida ku noqdaan magartay waxaad ka dhawaajisay beesha caalamka inaad maanta wada fariisteen cabashadiina aad u gudbiseen wax jawaaba ama wax beesha caalamka waa si fiican baan inoo dhageysteen waxaanu ahayn isbahaysiga isbedel samaynta oo aad ogtahay inay ku bahoobeen musharaxiin badan iyo siyaasiyiin badan iyo axzaab badan aad iyo aad bay runtii culayska arrinteenu ay leedahay ay u garwaaqsadeen waxaanan ku ballanay in la wada shaqeeyo oo wada tashi la isugu soo noqdo waxaanu u sheegnay si fiican bay u maqleen shirka madasha horta adiga ka aragti ahaan shirka madasha seed u aragtaa shirka madasha waxaan u aragnaa keligii uma arkay waxa weeye siyaasiyiinta aan ku bahownay isbahaysiga waxaan u aragnaa marka koobaad shirka madasha inuu afduub sharciyadii iyo dastuurkii uu yahay oo uu bedelay baarlamaankii Soomaaliyeed uu bedelay waa madax qaran oo qaarna ay federaalka madax ka yihiin qaarna ay gobolada ka yihiin laakiin dastuurku ma qorayo inay shaqada qabtaan marka shaqadii luma kalsoona hadda qofku waxaan lagu kalsoonayn markuu ka shaqeeyana dhibaato keenta dadku kuma kalsoona baarlamaankii kuma kalsoona dadweynuhu kuma kalsoona iyaga dhexdoodana wax badan baa ka dhaxeeyo khilaafaad marka anigu waxaan oran lahaa oo kula talin lahaa dadka u soo celiyeen talada dadka talada ay ka afduubahayaan iska daadeen dadka talada u soo celiyeen hal qaybsadeen dadka shacabka wakiilka ka siyaasiyiinta kale talada hal qaybsadeen wax loo wada jiro loo wada dhan yahay ayaa dalkan dhaqi kara oo runtii horumar lagu sameyn karaa maalin walba qolo inay wax aftuurto wax badan oo keenaysa lama arko mas'uuliyadda dalka waad soo qabatay xogaal badan waa u tahay dabcan arrintan bilowgeedina waxbaad ka soo ogeedo ra'iisul wasaaraha markaad aheedo waad filla Soomaaliya joogtay bal seed u aragtaa aqalkan sare in lagu maareyn karo iyo isqa qabsigan siyaasadeed ee aqalka sare markii hore horta aqalka sare markii ugu horeysay oo Soomaalidu ay ka wada hadasho ma aha dastuurka markii la sameeyay aqalka sare waa laga hadlay aad baa looga dooday waxa gunaanadku ahaa oo dastuurka ku cad in aqalka sare gobolada ay ka imaanayaan 18 gobolna loo qaybinayo 54 xubnood min 3 gobol walba uu noqonayo ay tahay haddii la bedelayo taas madashaan inay bedesho ma ahayn si ka ballaaran in loo bedelo ayay ahayd waa la bedeli karaa oo waxba soo kordhi kara laakiin wada tashi ballaaran oo national dialogue ah oo dadku uu ku qanacsan yahay dad badan oo kala duwan ay ka qayb galaan adduunka ama waxa lagu xalliyaa dastuur iyo sharci hore la isugu waafaqay ama waxa lagu xalliyaa wada tashi ballaaran marka inta farakutistira ah arintaas ma saldhigayso marka arintaas ama dastuurkii loo daayo ama wada tashi ballaaran laga qaato anigu taasaan u arkaa inaysan wakartay waxaad ka warhaysaa marxaladaha siyaasadeed ee dalka waxaad joogtay filla Soomaaliya
in aad murashax madaxweyne aad soo taagto maxaad ku dooratay adiga oo siyaasadda dalka iyo beesha caalamka siyaasadda Soomaaliya siyaasadeeda ku wajahan aad ka wareyso inaad Soomaaliya marxaladan xilligan ku jirta aad madaxweyne soo taagto maxaa kale horta marka koobaad weeye muwaadin kasta oo Soomaali ah waajib saaran waajibka saaran waxa weeyaan inuu dalkiisa hagaajintiisa uu qayb ka qaato qaybta ku aadan asaga inuu ka qaato xaqna waa uu leeyahay qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed waa xuquuq dastuuri ah inuu wax doorto oo la doorto ama doorasho uu istaago asagana uu wax doorto marka anigu muwaadiniintaasaan ka mid ahay waxaan u arkaa in ay wax caafimaad qaba ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay awood u yeeshaan qofkii isleh waxbaad ku biirin kartaa dalkan ama waxbaad ka qaban kartaa dhibaatada inuusan guriga fadhiyin oo uusan hakranina uu ka qayb galo uma arko madaxtinimada Soomaaliya wax lagu qabowsado waa halgan loo galahayo dalkan oo burburay in dib loo dhiso dib loo nooleeyo marka qofka madaxda noqonaya shaqo sahlan oo ku raaxaysanayo ma aha laakiin waa waajib qaran weeye in qofkii isla waxbaad qaban kartaa inuu isu soo taago aniguna sidaasaan isu soo taagahay doorashada Abdul ahaan maxaad isleedahay dalkan waad ku soo kordhi kartaa ama waad ka qaban kartaa hadii aad waxa weeye dalkan dib badan buu soo maray dhibkaas asaaskiisu waxa weeye hay'adda dawladda waa noo dhisnaayeen ciidan waa noo dhisnaa waxaasoo dhan waa noo dhisnaayeen dhibka asaaskiisu waxa weeyaan in la helo Soomaalidu inay heshiiso oo ay midowdo arrinta ugu horeysa oo madaxweyne walba ama mas'uul walba oo Soomaali ah waxa weeye inuu ka shaqeeyo sidii dadka Soomaaliyeed loo walaalayn lahaa oo loo heshiin lahaa oo loo midayn lahaa oo markaas gacmo wadajir bay wax ku gooyaan ay wadajir uga shaqeyn lahaayeen dib u dhiska dalka iyo xasilinta nabadgelyada arrinta labaad waxa weeye hadee dal jiri kara ma jiro haduusan ciidan lahayn Soomaaliya kuma tiirsanaan karto weligeed ciidan shisheeye anigu waxaan dhihi lahaa waa in mudnaan la siiyaa dhismihii ciidanka qalabka sida ciidan tababaran oo discipliin leh oo xuquuqdiisa hela oo kala sareyn leh oo ciidan beeleed aan ahayn ciidan qaran ah oo sidii ciidamada Soomaaliyeed ay ahaan jireen awood u leh inay hantaan nabadgelyada dalkooda kana difaacaan weerar gudaha ah iyo weerar dibadda inay ka difaacaan arrintaas waa arrinta kale oo muhiimka ah oo loo baahan yahay arrinta kale waxa weeye Soomaalida dalkeeda waa in la jeclaysiiyaa si lagu jeclaysiinayaa waxa weeyaan xuquuqda ay leeyihiin waa inay helaan adeeg wanaagsan waa inay helaan xuquuqda ay leeyihiin waxa ugu horeeya xaqan muwaadinka Soomaaliyeed uu u leeyahay inuu wax doorto oo aan wakiil laga noqon sidii loo keeni lahaa qof la leeyahay waa wakiil buu ka yahay waa in ayaga gacantooda ay ku doortaan one man one vote ay helaan marka arrintaas si lagu gaaranayo de shaqooyin badan baa loo baahan yahay in dastuurka wax laga bedelaa loo baahan yahay in jawigii doorasho xor ah oo qof iyo cod ah marka haddii adeeg la helo oo xuquuqda siyaasadeed ee muwaadinku uu lahaa uu helo oo jawi horumar dhaqaale ah la abuuro waxa weeyaan muwaadinku sabab uu dalka u qaxo oo badaha uu galo oo dibadda loogu xiro oo loogu duuleysto ma imaanayso Soomaaliya waa jiri jirtay dibadda dadku ma yaacin jirin marka anigu waxaan u arkaa dadaalada in dhinacyadaas la geliyo sidii ciidan loo dhisi lahaa sidii dadka loo midayn lahaa leena iyadoon dima jirin shaqo badan laba qaban karo iyo sidii adeegyadii iyo xuquuqdii dadka muwaadinku uu lahaa loo soo celin lahaa marka dadku dalka uu jeclaado oo ay ka qayb dabcan hadda murashax ayaa tahay xilliga aad filla Soomaaliya joogtay oo ra'iisul wasaaraha dalka ahayd dabcan kugu jira inaad madaxweyne isku soo taagto waxa weey markaas shaqaan hayay shaqadaas runtii ahayd ahmiyaddeeda koobaad ma aanan lahayn
priorities kale ama mudnaan kale ma aan lahayn marka taas ayaan ku mashquulsanaa markii aan aniga xafiiska joogay adigii madaxweyne xasan sheekh waxaad ku kala tagteen khilaaf oo dabcan khilaafkiinu meeshuu gaaray waa laga warhayaa Soomaalida iyo caalamku way ka warhayaan mudan ra'iisul wasaare si faahfaahsan waxyaabaha aad madaxweynaha iyo adigu isku qabateen adeertaas waa laga dheregsan yahay oo dadku waa og yahay laakiin haddaan si guud kugu sheego waa un shaqada sidan loo waday sidan loo wado iyo dastuurka la dhowro iyo sharciga la dhowro iyo la jiifiya banaan la joojiya banaan arrimo la xiriira arrimahaas ayay ahayd laakiin tafaasiishu dadku waa hayaan marka loo baahnaa inaan hadda odayga xiriirkiina waa sidee markaa maadaama aad khilaaf siyaasadeed ku kala tagteen odayga dad wada shaqeeyay baan nahayo hadda haddii aan saragno sidii dad wada shaqeeyo saaxiibahan wada hadlaynaa laakiin isma aragno ilaa waagi aan kala tagnay mar baan u malaynahay inaan boosaaso isku salaanay waa gartay si faahfaahsan ayaad uga hadashay waana kaga mahadcelinayaa waxaan kaloo jeclahay inaad ku weydiiyo ma jirtaa in wasiirro xukuumaddaadii ka tirsanaa ay u ololeynayeen in ay xukuumaddaadu ay dhacdo iyaga oo la safnaa dhanka madaxweynaha haday jirtase maxaad nooga sheegi kartaa waa jireen wasiirro madaxweynaha isku qorsho ahaayeen oo doonaya xukuumadda inay dhacdo laakiin sababaha ay sidaa u doorteen ayagaa la weydiin karaa oo ka jawaabi kara anigu kaban jawaabi karo laakiin waa jireen waa gartay mudan ra'iisul wasaare waxaan kaloo jeclahay dadka ku dhaliilaa waxa ay qabaan in siyaasadda xoogga dhanka qabiilka ay u janjeerto tusaale markii aad ra'iisul wasaaraha ahayd maamulka Puntland oo kale ayaad dhowr mar safaro ku tagtay ma qabtaa in arrintaas ay jirto mar miyaa mise labo aan waxaan u malaynayaa markii inay ahayd markaan Puntland aan tagay Puntland waxa ka mid tahay gobolada waaweyn oo dalku uu ka kooban yahay oo anigu aan ra'iisul wasaare u ahaa marka xamar inaan joogo iyo Puntland inaan tago iyo inaan Baydhabo tago waa isku mid waxaan u malaynayaa intaan Baydhabo booqday ayaa ka badnayd intaan Puntland tagay gobolada dalka oo dhan inta badan waan tagay marka gobol aan gaar ah u tagayay iyo gobol aanan u tagayn ma jirin marka waxaan u malaynayaa arrintaas sida loo yiri ay samaxay waa gartay ururka dhalinyarada qaranka ayaad maalintaad xukuumaddaada la ansixiyay habeenkii soo dhaweyn gurigaaga kuugu sameeyay xilli aad Puntland kula kulantay dhalinyarada deegaanadaas ku noolna waxaad sheegtay in urur dhalinyaro qaran uusan jirin hadduu jirana xaafadaha Muqdisho uusan dhaafin sidee arrimahaas isku qabanayaan adeer waxaan ku gubaabinahay dhalinyarada in haddii urur dhalinyaro ay yihiin Soomaaliya oo dhan leena dhalinyaradu waa Soomaaliya waa inay ku midaysan tahay in uusan qof walba uusan sheegan inuu dhalinyaro qaran yahay ay dalka isku baahiyaan oo meel walba ay ka shaqeeyaan oo dhalinyarada ay mideeyaan oo ay walaaleeyaan oo ay isbaraan oo ay wanaag dhex maro midaas ahayd mid aan ku gubaabinahay dhalinyaradu mar walba waa laf dhabartii dalka meel kasta ay joogaan marka arintaas sidaas ay si kale soo loo madhigi karo hadii aad tiri dhalinyaro qaran ma jiro oo waday jiraan xaafadaha Muqdisho ay koobeen hadamaya dhalinyaro qaran waxa weeyaan anigu hadda ma aanan arag urur dhalinyaro meel walba xafiis ku laho meel walba shaqo ka wada oo Soomaaliya oo dhan ka wada waa jeclaan lahaa inaan arko waana ku dhiirigelinayaa inay sidaas sameeyaan laakiin waxaan u malaynayaa sida dalku u burburay ayaa hay'ad walba ay u burburtay dalkoo dhan dalkii baa weli kala qaybsan marka waa jeclaan lahaa inaan arko urur dhalinyaro qaran meel walba jooga waa gartay waxaad sameyseen isbahaysi isbedel samaynta aad ugu magac darteen oo siyaasiyiin iyo murashaxiin aad ku midaysan yihiin waa maxay ahdaafta iyo ujeedada aad u sameyseen isbahaysigaas horta isbahaysiga wuxuu la xiriiraa kow in waqtigan kala guurka si wanaagsan oo aanay dhicin in dadka Soomaaliyeed khilaaf cusub laga dhex abuuro sidii looga wada shaqeyn lahaa isbahaysigu wuxuu ka kooban yahay murashaxiin waxaan u malaynayaa 90% intii sharaxday isbahaysigana ka mid yihiin axzaab badan ayaa ku jirta dad badan oo wax ku ool ah ayaa ku jira marka sidii wax loo toosin lahaa oo aan gabi dhaclayn
wax naga xumeeya oo nabadgelyadii iyo wadajirkii ummadda wax u dhima sida aanay u dhici lahayn baanu ka shaqaynaynaa marka hawshanadu waxay ku aadantahay inaan isu bahaysano in sida caalamku wax u doorto wax u dhow hufnaan iyo dhexdhexaadnimo iyo cadaalad in la helo oo musharaxiintoo dhan ay helaan markaana ay dhacdo in ay soo baxdo wax la isku waafaqsan yahay oo si wanaagsan u soo baxay oo markaa keena in dawlad la ictiraafsan yahay ummadoo dhan ay ictiraafsan tahay inay si wanaagsan ku timid ay timaado taas way isbahaysigaan waxa iska kaashanaya madaxweyne xasan sheekh iyo asxaabtiisa filla Soomaaliya joogta isbedel waxa iyagu la baxeen xilligii ay murashaxiinta ahaayeen isbedel doon dabcan maantana xaaladdu meesha marayso waa la socotaa idinkan maanta isbedel sameyn ayaad sameysteen bari hadda sidaas oo kale filla Soomaaliya tagtaan soo lagama yaabo in hadda qoladii isbedel doonka samaysto kale aad noqotaan baashano markii murashax aad tahay ay inaad magac qurxan la baxdo hadhowtiina qowda maqashay wax u qaban oo kale ay noqoto markaan taagnaa la arki doonaa arintaas laakiin waxaan rajaynaynaa in waxa Soomaalidu danteeda ah iyo waxa Soomaalida ay jeceshahay inaan ka shaqeyno annagu waxaan u aragnaa qofka bila Soomaaliya taga inuu yahay qof shaqaale ah oo ummadda u shaqeynayo ummaduna ay tahay sultada ama qofka madaxda ah ee loo shaqeynayo marka annagu halkaas ayaan ka ambaqaadaynaa waana rajaynaynaa in isbedelka aan ku dhawaaqnay uu noqdo isbedel loo aayo oo ummadda Soomaaliyeed u wacyido mudane ra'iisul wasaare muddadii aad joogtay xafiis dabcan muddo 10 bilood ayaad xafiiska joogtay waxyaabaha aad dhihi karto Alleela Cabduliyo waxaasad qabatay oo maanta waad ku faani kartaa ama Soomaali waad u qabatay maxaad nooga sheegi kartaa adar horta markii aan nimid waxyaabo dhowr ah oo qaarna hadii sidii dalku u xasilin lahaa waxana sidii dawlad loogu gudbi lahaa ayaanu soo hornay shaqo xoog aan saaray waxay ahayd shaqadii sidii dalka loo xasilin lahaa gacantana loogu soo celin lahaa dhulkii ka maqnaa maamulka dawladda waxaad garanaysaa haddaad fiiriso shaqada waxaan la wareegnay bishii February iyo intii u dhaxaysay October November bay ahayd markii aanu shaqada ka tagnay waxaanu dib u soo celinay 80% dhulkii gacanta dawladda ka maqnaa 80% dhul yar ma aha haddii aad ka soo qaado min Buulaburde Jalalaqsi meesha la yiraahdo Ceelbuur ilaa Tiyeeglo Waajid Xudur Baraawe Qoryooley meesha la yiraahdo Kurtunwaarey ilaa iyo Buurdhuuba iyo dhulkaas aad ku tagto dhul aad u ballaaran ayuu ahaa waxaan ka shaqeynay sidii dhulkaas loo xasilin lahaa oo adeegii ay u baahnaayeen dadkana loogu gurban lahaa shaqo culus bay ahayd runtii aad u culus laakiin waxaan u maleynayaa in dadka Soomaaliyeed ay og yihiin natiijo fiican in laga keenay dastuurka dalkeena wuxuu qabaa in Soomaaliya ay tahay dawlad federaal ah loona baahan yahay marka in maamullo federaal ah la dhiso shaqad xoog leh waxaanu ka qabanay dib u aasidii maamulka Jubbaland oo aad og tahay khilaaf badan inuu ka taagnaa xabad la isu haystay dadku aanu heshiis ku ahayn sidoo kalena dawladda federaalka iyo iyaga isjiid badan oo ka dhaxeeyay arintaas waa soo afjarnay intaan meesha joognay waxa aanu dhisnay oo aanu dhammaystiray dhismihii maamulka Koonfur Galbeed oo isagana runtii hawl aad u culus ahayd waxaanu dhisnay doorashadii madaxweynaha iyo golayaasha galmudug ay ka kooban tahay unbaa gadaal laga sameeyay heshiiskii la isugu keenay qaybihii kala duwanaa galmudug ilaa dhismihii guddiga farsamada
waxay ahayd wax aanu ka shaqaynay oo aanu samaynay haddii dhinaca shaqaalahana shaqo badan baanu ka qabanay waxaan u malaynayaa inaanu aada ugu dadaalnay in la helo xuquuqda shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba waxaan ka shaqaynaynay in darajooyinkii civil service-ka iyo xagga militarigaba dib loo soo celiyo oo maamul hagaagsan maamul wanaag halkaa laga sameeyo adeegyada bulshada wasaaradihii ku shaqo lahaa shaqo badan bay ka qabteen runtii xagga waxbarashada iyo caafimaadka iyo haddii mar kastoo maamuladu dhulka dowladda gacanteeda ku jira ay sii ballaaranayaan waad garanaysaayoo adeegga loo baahan yahay waa sii badanayaan marka shaqo badan baan ayadana ka qabanay howluhu waa badnaayeen laakiin kuwaas waa inta hadda aan ku taaban karo leanna waqti ka dheer intaan ayay u baahanayaan in la wada sheego loomana baahna oo hadda dadku waa ka warqabaa wax badan oo la qabtay duruufaha jiray in wax la qabtay aad bay u adkaayeen runtii waad garanaysaa duruufaha siyaasadeed dadkii in loo bislaado dowladnimada waqti dheer bay qaadanaysaa waxaa kale oo meesha yaalla hadda duruufihii dhaqaale waa iska uriidi bay ahaayeen laakiin run ahaantii anuu aada ugu mahad celinahaya saaxiibaday nimankii wasiirada ahaa oo ila shaqaynahayo shaqa runtii aada u adag galay waa u mahad celinaya shaqo aad fara badan baa la qabtay natiijo fiicanna waa la waxay marka shaqadaas shaqa aan keligay qabtay ma ahayn waa shaqo aan ku qabanay annagoo isu dhan oo gacmaha is haysanna marka dad badan oo hadda aan la sheekaysto waa ku faraxsanayn sida tiimka oo loo shaqaynayay aniguna waa ku faraxsan dhismaha galmudug oo kale ayaad soo hadal qaaday oo maamulkaagu dabcan gobol xaarkiisa uu lahaa galmudug dabcan iyo puntland ilaa hadda xaaladooda meeshay marayso waa ka warhaysaayo go-aankii dhowaan puntland ahaa in koonfurta iyo bartamaha gawaarida ka yimaadoo kale aysan dhinaca puntland u gudbi karin iyagoo dhan amni u sababeynaya arinta gobolka mudug oo kale waa qasantoo galmudug oo kale waata laba gobol leeyahay puntlandna magaalada gaalkacyo ay laba u kala qaybsan tahay arintaas lama dhihi karo xukuumaddaadii maadaama gobol xaarka aad lahaydeen maamulka galmudug ma aadnaan faahfaahin ama ma aadnaan sababayn inta ay ku eg tahay maya haddee hawshaas waa socotay oo annagu gobol xaar baana lahayne waxaanu gebagabaynay go-aankii reer galmudug ay ku gaareen qaybihii kala duwanaayood garanaysa sunna waljamaaca galmudugtii hore ximan iyo xeeb maxaa la yidhaahdaa ilaa iyo 7 waxaan u malaynahayaa maamul ayaa jiray oo xaradheere mid ka dhisan yahay mareeg muxuu ahaa central state waad garanaysaa waxaanu ku guulaysanay dadkaasoo dhan ayagoo madax bannaan inay ku tashadaan inay madoobaan maamulkooda inay dhistaan iskuna waafaqaan guddigii farsamada oo u habeyn lahaa u maamuli lahaa shaqadaas marka haddee shaqadu shaqo socotay bay ahaydoo intii annagu aan ka tagnay haddii ay wax si noqdeen shaqada markaa shaqo socotay bay ahayd dhanka kale waxaa tahay ra-iisul wasaare dhaqaaliyahan dabcan ilaa iyo dhowr wadan aad ka soo shaqaysay ama bangiyo caalami aad u soo shaqaysay dhowaan waad ka warhaysaa bangigii Soomaaliya lacaga laga dhacay ayaa leeyahay meel laguma sheego lacagtii ma la musuqmaasuqay ma la dhacay dabcan muddo ayayna ahayd markii la sheegay ilaa haddana cid loo xiray meel ay ka baxday lama sheegin sidee kula muuqata arrintaas wallaahi horta waa nasiib darro anaga hadda lacag nagama go'do dad aad u tabar daran baan nahay wax kastoo nala ka qaado ama si musuqmaasuq anagoo ka qaado lacago badan oo si musuqmaasuq ah loo qaadaa jira ama xatooyo ha noqoto waxaan u malaynayaa xatooyada waxaaba aad uga badan musuqmaasuqa ka badan iyo ku takrifalidda iyo maamul xumada waxaasoo dhan wax ummadda Soomaaliyeed ka maqan weeye marka arrintaas waxay ila tahay anigu tafaasiisheeda ma hayo oo hadda sidaas wax u dhacay ma dhihi karo laakiin waxa waa nasiib darro in la hagaajiyo maamulka oo la adkeeyo
hantida dadku leeyahay inaan ama lagu takrifalin ama la musuqmaasuqin ama aan la xadin laga maarmaan weeye marka dadka mas'uuliyiinta oo arrintaa ku shaqada leh waxaan ku boorinaynaa inay xoog saaraan arrintaas oo ay hufaan maamulkooda iyo dadka ka shaqaynaya iyo kormeerka lagu samaynayo inaan la xadin ama la musuqmaasuqin ama lagu takrifalin hantida waa wax laga maarmaan ah maxay kula tahay in shirka igad inuu muqdisho ka dhaco ay Soomaaliya u soo kordhinayso waa fiican tahay in shirar ay ka dhacaan Soomaaliya oo hadii in lagu soo martiyo waa wax aad u wanaagsan oo heybad dalkeena u ah dhibka kaliya oo hadda aan arko waxa weeye dhib badan baa ummadii ku dhacay dhowrkii beri oo la soo dhaafay oo la yiri wadooyinka dhan waa in la xiraa meel walba waa in la xiraa waxaan u malaynaa hadda dhowr beri cid walba saameysay oo xataa maanta qaadadii aan unahayay iyo shalay tii ku horeysay waxaa la yiri lama soo adeegan karo adeeg ma jiro waad garan kartaa dad badan baa xanuunsan oo isbitaal u baahan dad badan baa ganacsi haysta dad badan oo ganacsigood ku waxayna ku soo aaday runtii waqti iid ah oo dadku inuu dhaqdhaqaaqo oo isa soo salaamo oo farxad ay qaybsadaan oo ay caruurta wax u soo iibiyaan oo waxyaabahaas oo dhan loo baahnaa magaalada dhan in la xiro oo meel walba la xiro wax loo baahan yahay ma ahayn qolooyin ajnabi oo aan sheekaysanayno waxaan ku bal ka warramay dalkiina Christmas ayadoo ah haddii dawladdu abar soo saarto ay tiraahdo la isma socon karo oo Christmaska lama waxayn karo marka anagu hadee shirka igad waxaa nooga muhiimsan ciidanada nooga muhiimsan ciida ka muhiimsan waa wax runtii culays ah weeye wax culays ah weeye waana dareensanahay culayskaas in dadkan ku dhacay waa uga tacsiyeynaya ummadda Soomaaliyeed ee xamar degan waa uga tacsiyeynaya waan la qaybsanay oo waan joognaa oo anaga laftigeeda maalin hore wadooyinkii markii la xiray baan jidka ku lugayna inaad aragteen in kala ma aqaan laakiin jidka ku lugayna anagu mas'uuliyiin ah mar dambana waanu tagnay oo ilaa iyo daljirka dahsoon ayaanu tagnay oo aanu dadka uga tacsiyeynay arrintaas marka arrintaas waxaad moodaa inay ahayd culays okay gudiga doorashooyinka gudiga dadban dadka qaar waxay dhahaan asxaab madaxweynaha ayaa ku jirta sida gudoomiyaha kale oo la taliyihiisa ah dhigay adiga sidoo u aragtaa sidoo u kalsoonaan kartaa gudiga qaabkii markii hore loogu talagalay oo dastuurka ku qoraa oo ahaa in dad badan araajo soo qortaan sidaan ku dhisnay gudiga wax ka bedelka dastuurka shan xubnood bay ahaayeen waxaanu samaynay iclaan guud oo cid walba inay CV-geeda iyo waxaada soo gudbiso guddi baan u saaray shaqo badan baa laga qabtay golaha wasiirada ansixiyay golaha wasiirada markay ansixiyeen golaha baarlamaanka ayaa ansixiyay qaabkaas waa qaabkii dastuurka waqtigii baa la lumiyay marka waxay noqotay aakhir saaca in la yiraahdo malaha dan baa laga lahaayo dantu waxay ahayd wax degdegsan oo la yiraahdo bal hal laga gaarsiiyo in wax lagu qarsado oo markaas wax markii hore aan lagu qarsan karin lagu qarsado marka anigu runtii hadda dadka ku jira sida ay kala ahaayeen iyo taariikhdooda ma hayo laakiin arrintaas in dad badan oo shaqaalaha dad ka mid ay shaqaale ahaayeen oo ama madaxtooyada ay ka shaqaynayeen ama ay u shaqaynayeen mas'uuliyiinta kale waan maqla in dadku aad iyo aad u dhalisan yahayna waan oga isbahayskanaga wuu dhalisan yahay arrintaas oo dhexdhexaadnimada guddigaas waa dhalisan haddana waxaan doonaynaa wixii in la saxo oo la saxo waxaan markaa hadda dhowaan ku tala jiraa inaan shir la qaadano
ونرى كل سكست كوي ما هذا دينكو أما وحكست شغلي إنها أحد هذا وحاتين جدي الصوماليات والغربوا إن يدافرين ودحلحدهم مركا بالبركي أنا أرجع الصومال وحتى هذا برشة هرتين هاي نعد مركا صبرنا وأنا أرجع السداء وحما عملوا هيان السداء وحيله هيان مركا سان فهمتي أما أمان أسوي جيدين كرا أما دليل أسوي جيدين كرا مركا عفى الله عما سلف وتيل يجري يحور إسكاف لكن هذا أيام وفدنا إن النقدان بحلو وترجلي إن النقدان هدي أي نقدان وكل شقينا وكل بقادينا وكل أماننا تاريخ بين السماين هي فهمت ما تتبدي أي شغف عن قرطان وأي موجيان سوما المدود يدحد حد مدود iyo in arintaanu wixii ceebahu ka yimaada ayaga ay dusha saarayaan runtii taariikh fiican bay helayaan marka waa ku dhiirigelinaynaa inay si wanaagsan u dhaqmaan waana kula shaqaynaynaa haddii alla idin waa gartay rajo inta laag ayaad ka qabtaa in adoo fiirinaya marxaladaha hadda la marayo qaabka wax u socdaan rajo inta laag ayaad ka qabtaa in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo muqdisho waliba waqtigii loogu talagalay ay dhacdo doorashada madaxtinimada horta doorashadu waxay ka soo bilaabanaysaa gobolada ka soo bilaabanaysaa aqalkii sare iyo aqalkii hoose iyo dadka waxyaabaha aanu ku tilmaan qaadan waxa weeye khatartu aad bay u weynta khatarta keeni karta in doorashadaanu fashilanto aad bay u weynta laakiin haddii la isugu tago oo qalbi wanaagsan iyo niyad wanaagsan dadka ku shaqada leh ama stakeholderskoo dhan oo ay ka mid yihiin mucaaradka lianna doorashadu annaga toos bay noo khusaysaa waxaa weye cidda doorashada ka qaybgelaysa toos bay u khusaysaa marka talada waa inay wax ku yeeshaan haddii si fiican loo wada shaqeeyo oo guddiyadaas wax maamulahaya si wanaagsan ay u shaqeeyaan oo odayaasha dhaqanku ay si wanaagsan u shaqeeyaan oo ilaahay ay ka baqaan oo ay ogaadaan waxa shaqadaanu tahay inay tahay masiirkii iyo mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo 26 sano dhibaato ku jirtay oo la yiraahdo bil maanta ilaahay aan ka baqno wixii la soo maray waaba la soo maray maanta aan ilaahay ka baqno oo damaca shakhsiga ah iyo waxa jeebka la gelinayo iyo eexda iyo waxa soo dhan waxa ka weyn dadku arko oo ah ummad Soomaaliyeed oo loo adeegayo oo raba in loo cadaalad falo cadaaladaasuna ay keento wax xalaal ah inay soo baxaan haddii wadadaas la maro waxay la tahay in marka khatartaas lagu hortagi karo oo wax la hagaajin karo marka shaqada hadda anagu aan hayno isbahaysiga isbedel doonka waxa weyn khatartaas loo hortago in dhammaan qaybaha kala duwan waxaan dhawaan la kulmi doonaa haddii alla idmo hadda way kala baqan yihiin baa nala yiri gudoomiyaha xataa wuxuu ku maqan yahay nala ku yiri Nairobi inaanu la fariisano guddiga doorashooyinka heer federaal waxaanu booqan doonaa gobolada oo aanu la fariisan doonaa waxay nala qaybsan doonaan sida ay doonayaan inay wax maamulaan haddii marka dhaliilo aan aragno waan u sheegaynaa waanigi kule barasho horteed hayno cid baa la yiri horta waa inaanu si fiican u aragnaa sida ay wax u wadaan marka haddii aynu iskaashano waxa dhici karta inaanu shaqo fiican qabanno ilaahina waa ka rajaynayaa taas inay dhacdo ilaahina uu guuleyn haddii ay dhici weyso oo qaabkaad wax u rabtaan ay u dhici waayaan oo cadaaladda ka murashaxiin ahaan iyo ka isbahaysi ahaan doorashada sideed ku aqbali karaysaa waa sheegnay oo warsaxaafadeedka aan soo saaray oo aan dadka la wadaagno waxa weeye wax aan cadaalad ahayn oo aan la aqbali karin ma aqbalayno kama qayb qaadanayno qayb ka noqonayno marka arintaas waa naga go'an tahay laakiin waxaan ku dadaalaynaa oo aad ugu dadaalaynaa ilaa haddana
qolana tiri waxbaan kharibaynaa oo cadaysatay ma aragno marka kuma degdegayno inaanu go'aan qaadano waxaanu ka shaqaynaynaa wax hagaagsan oo hufan in ummadda Soomaaliyeed loo maamulo waa caawinaynaa gacan ka geysanaynaa talan gacan uga geysanaynaa wax allaale iyo wixii arintaas ay mudan tahay oo aanu gacan ka geysan karno ayaanu gacan ka geysanaynaa haddii markaa dadka kalena ay niyadaas oo kale la yimaadaan qaybaha kala duwan waxaan rajaynaynaa inay wax hagaagsanaadaan haddii se damaca uu ka qaalib noqdo oo ay noqoto in wax la joogo oo wax la afduubo oo wax la musuqmaasuqo oo wax isdaba mariyo haddii ayadana talan ka qaadanayna ka murashax ahaan rajo intee la eg ka qabtaa in aad ku guuleysato xilka madaxtinimada Soomaaliya waqti baa dhiman waqti hadda aan wax qiimeyn karro ma aha laakiin niyad fiican baan ku gelaynaa inaanu ummadda Soomaaliyeed la qaybsano tartankaasaan la qaybsano wixii si cadaalad ah ku dhacana waxa weeyaan waa waafaqaynaa waana ku qancaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa annaga hadday noqoto iyo cid kale hadday noqotaba in dalkan marka koowaad doorashadu ay ku dhacdo si nabadgelyo ah oo cadaalad ah inay ku dhacdo oo dadka kala duwan ee doorashadaas ku shaqo leh xukuumadda dadka uga shaqo leh guddiyada maamulaya doorashada odayaal dhaqameedka heer gobol iyo heer federaalba in ilaahay u garansiiyo inay shaqadan si fiican maamulaan kadibna ilaahay inuu haleeshiiyo in xildhibaano wanaagsan dalkan loo soo xuro in hogaamiyaal wanaagsan oo ummaddan u adeega oo aan ka adeegan ummaddan u adeego oo aan ka adeegan ilaahay inuu waafajiyo ummaddan oo keena in qarankan dib loo mideeyo in dib loo nabadeeyo in xuquuqda muwaadinka la soo celiyo sharaftii iyo karaamadii muwaadinka Soomaaliyeed uu lahaa inaynu la mid noqono dalalka kale inay sidaa u dhisan yihiin cirka kama soo dhicina dad baa ka shaqeeyay rag iyo dumar muwaadiniin ah ka shaqeeyay in marka muwaadiniinta Soomaaliyeed ilaahay uu waafajiyo in ay la mid noqdaan oo ku daydaan dalalkaas oo dalkeena waji wanaagsan ay u yeelan waa gartay adduunka wadan ilaa 10 ilaa 15 ilaa 20 madaxweyne murashax ay isku soo taagtay ma jirto Soomaaliland waa ka warhaysaa 10 ilaa iyo ka badan murashaxiin isku soo taagtay maxaa sabab isleeda sababaha waxa weeyaan waxa ka mid ah adduunka axzaab buu leeyahay marka axzaabta midaysa marka hore waxa lagu soo tartamaa xisbiga dhexdiisa lagu soo tartamaa waad ogtahay oo Mareykanka ilaa iyo dhowr iyo 10 bay ahaayeen ugu dambeyntii waxay isku soo hareen labo qof oo midna Republicanka uu ka socdo marka waxa lagu soo kala hufaa axzaabta annaga hay'adkaas nooma dhisna oo axzaabtii nooma dhisna marka hadii qofka iyo murashaxnimada wax u dhaxeeya ma jiraan ugu dambeyntii ra'iisul wasaare murashaxiin aad isleedahay ragga hadda ilaa hadda soo sharaxay alla xilkan waa uga baqdin qabtaa oo ragga kula baratami doona ma jiraan maya anagu qof kasta waxaan u arkaa go'aanka waxa iska leh dadka wax dooranaya iska leh welina dadka wax dooranaya lama hayaba oo weli lama dhisin marka waqti la yiraahdo hebel baa horeeyay hebel baa dambeeyay hebel baa dhexeeya weli lama gaarin shaqo badan baa يا سقطة شقة يا صوصات. سؤال شو دم بهذا هدي أم كلك فتم هذا الحكم مدحون لما تقول ليش أنا محد يبلغ قاعد يسكع أحمد هان. سوى ذاك سمو الله صغير. إن شاء الله ما استنى.